waxaa halkan aan taaganahay oo ah bartamaha magaalada London gaar ahaan meesha la yiraahdo Westminster oo ah meesha looga taliyo dawladda Ingiriiska ku sugan oo halkan buu ku soo bandhigay wariye la yiraahdo Martin Shebby oo u dhashay wadanka Sweden kaasi oo isaga iyo wariye kale oo la socday sanadkii 2011 lagu xiray deegaanka Soomaalida halkaas oo ay ka qabteen ciidamada Itoobiya isla markaana ay geeyeen magaalada Addis Ababa oo lagu xukumay muddo 11 sano xarig laakiin markii dambe la sii daayay hanolaato waa barnaamij aan uga hadalno isbeddelka nolosha bulshada Soomaalida saameynta go'aanada siyaasadda iyo arrimaha bini'aadanimada ka qayb gal oo ra'yigaaga ku biiri hanolaato waxaa halkan ku sugan guddiyo ka tirsan baarlamaanka waddanka Britain oo qaabilsan xuquuqda aadanaha waxaa jooga saraakiil ka socota hay'adda xuquuqul insaanka ee la yiraahdo Amnesty International ururo iyo dad madax bannaan oo daneeya difaaca xuquuqda aadanaha goobtan oo ah aqalka baarlamaanka Ingiriiska dhexdiisa ma sahlana shir inay community ku qabsato kuna casuunto hay'adaha Amnesty International Human Rights Watch xildhibaano iyo wariyahan aad arkaysa maartay intuu ka tagay dhulka Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaaliya kadib markii Itoobiya fiisa u diiday ugu dhibaateeyay dhulka Soomaaliyeed ee la haysto markuu tagay Itoobiya ku qabteen oo 3 bilood ay ku jirdilayeen marka shirkan wuxuu ku saabsanaa guud ahaan arrimaha xuquuqul insaanka iyo maxaa sababay in meediyaha loo diido dhulka gumaysiga ku jira maxaa la qarinayaa oo ay Itoobiya u diidan tahay dadkaas in meediyaha caalamku soo arko maxaabiis 7,000 gaaraysa ayaa ku xirnayd xabsigana la geeyay waxa kale oo la geeyay xabsi kale oo ay ku jireen ilaa 800 oo qof qolkan lagu xiray waxa ku xirnaa ilaa 300 oo qof mar walba oo meel laga bedelo waxa lagu sii siyaadayay cabsida Martin Shebby iyo wariye la yiraahdo John Berson ayaa sanadkii 2011 bishii June laga qabtay deegaanka Soomaalida iyadoo loo geeyay gudaha magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya waxaana wariyaha uu kuurgalayay xaaladda dhabta ah iyo tacadiyada dad badan oo deegaankaasi ku nool ay qabaan gaar ahaan qowmiyadda Soomaalida halkaas oo ku tilmaamay meel ka xayiran indhaha adduunyada oo ay adag tahay in cid madax bannaan ay ka soo waranto shacabka dhibaato fara badan baa haysata sida uu wariyuhu inoo sheegay arkayseen wariyahaas oo min cadaan ah oo reer galbeed ah oo ogtihiin dalku ka soo baxay inay ay ka yimid inay xuquuqdiisa u dagaalayaan ayaaba dhibaato arta loo geystay oo hal sano iyo 2 bilood 14 bilood ayuu xidhnaa oo xuquuqdiisa dhan la duudsiyay oo fil lagu sameeyay la dhaawacay dhibaato loo geeyay markii aan weydiinay wuxuu yiri dad masaakiin ah lagu tumanayo la leeyahay nasiib wanaag waa ka soo baxnay buu yiri ummadaasi ummad halmaamay oo qarnigii koowaad ku nool oo la dul saaray cadaabtii u dambeysay weeyaan albaab kasta laga xidhay waxay ku jiraan jaal dhan walba laga xidhay bay ku jiraan ku dhiirranaanshaha ninkaasi uu sheegay ajnabiga waxa ka jira saad la socoto dadka Soomaalida guud ahaan ama Soomaalida ogaadeeniya xataa iyaga oo Britain iyo wadamo xor ah jooga wadamada reer galbeedka ayayna ku dhiiran karaynin dhibaatooyinka dalkoodii iyo dhibka loo geystay ee jira marka waxa ay ka taraysaa horta koow ku dhiirranaanshaha laba waxay ka taraysaa maadaama uu qof ajnabi ah yahay oo qof dadkii Soomaalida ahaa oo kuwaaba meediyaha u shaqeeya ama siyaasadda u shaqeeya ama maamulada u shaqeeya ay ku dhiiran waayeen bal inay ka maqlaan qof ajnabi ah inuu dhibaatadii iyaga haysatay uu afkooda uga sheego marka waxaan leeyahay aad bay uga faa'iideysan karaan haddii ay tan waxaana dhici kartaa in ku dhiirranaansho fara badan ay dhacdo sidii haddaba Australia iyo meelo kamid uga dhaceen arrintan waxay cadeynaysaa oo aan rabnaa hadda in ay daahfur tahay inaan la qarin karin xaaladaha meesha maadaama ay hadda fadhiyaan xataa wasiir uu fadhiya hadda meesha waddankan Britain ka qayb gal oo ra'yigaaga ku biiri hanolaato waxay tiri waxay arrintan oo kale ugu riixaysaa inaan wax badan ka ogaado xaaladda Itoobiya oo marba marka xigta ka sii daraysa Ethiopia is the second biggest recipient of UK Ethiopia waa waddanka labaad ee la siiyo kaalmada ugu badan ee ay Britain bixiso haddii aan iskaashano wax waan ka qaban karnaa xaaladdan aniga ka xildhibaan ahaan waxaan ballan qaadayaa inaan baarlamaanka horgeeyo oo aan codkayga ku biiriyo arrintan xaqiiqdii aad baan uga xumahay marka laga hadlo sida indhaha looga riday warbaahinta si indhaha caalamka looga qariyo waxa dhabta ah ee ka socda gudaha dalka Itoobiya muddada dheer
waxa taas ka sii xanuun badan waxay tahay sida loo cawiray indhaha reer galbeedka oo u muuqda kuwa ka indhala tacadiyada ka dhacaya Itoobiya. waan u safray dhowr jeer Itoobiya mana ahan wax laga aamusi karo. Patricia, you can come near and people can sit and have a photograph because I know. لأن ماشى وحجر دقدقاق حريدون شعب كلهم بحريدون ويه. أنا قلت لنا بحرية ودقالين وياك أنا أوصل دقالي أبي وأنا أودقالي أنا كنا أودقالا وأنا أودقالينا إلى أم حرية كتما دون كاس وكذا ماله. لكن وحي قيمة وتهيئ وإنه كالميان شعب كاس أركان بقيمة وتهيئ marka ilaahay aan ka rajaynaa inay shacabka xuquuqdooda lagu tumanayo ummadaha ilaahay inuu tuso ayaan ka rajaynaa. waxa kale oo aad uga hadlay arinta la xiriirta in gaar ahaan qowmiyadda Soomaalida ay dhibaato weyn ku qabaan taliska halkaasi ka jira oo uu sheegay in tacadiyo badan oo xadgudubyo ah oo ka dhana xuquuqda aadanaha loo geysto kooda banaanka jooga iyo kooda xabsiga ku jira. hadda runtiisu wariyo u sheegay oo dhab ah weeye wadankaasi waa xabis kor ka furan jahalay kale karuuna jirin wixii ku dhacay wuxuu inoo soo bandhigeen arkaynay naqdo maanta aan arkaynay dhibaatada hore baan u daawanay anaku maanta inaan daawano la wadaagna dad kale ayaan ugu talagalay haddii ayna iyagu galaynin oo ayna u dirsanaynin dad madax bannaan wariyaal madax bannaan oo ayna awood u lahayn waa inay ka qaataan xogta dadkeedu xiriir bay leeyihiin dadkoodii oo joogtay leeyihiin oo waxa maanta ka dhacay xitaa meesha ugu baadiysan waan la soconnaa. waxaan hubaa dadkii meesha isku yimid ee Soomaalida ahaa dhammaantood inay victims ku yihiin dhibaatooyinka ninkan uu ka sheekeeyay waan anigana kamid ahay oo ay runtii aan dhihi karo qof ama dadkoodii ama aan la dilin ama aan la xidhin ama aan la barakicin inaysan ku jirin dalkaana waxaan dhihi karaa waa xabsi hawada ka furan. waxaan xasuusanaa taariikhda dhowr sano ka hor wariyaasha Al Jazeera ee tagay in ay ku tilmaameen xabsi furan. labada saxafi ayaa xukuumadda Addis Ababa waxay ku eedeysay argagixiso iyo inay garab siinayeen jabhadda ONLF ee dhaqdhaqaaqa gobonnimadoonka deegaanka Soomaalida. buugga ayaa waxa uu kaga sheekeeyay 438 cisho oo uu kaga hadlayay tacadiyada oo ay la kulmaan gaar ahaan shacabka Soomaalida iyo guud ahaan qowmiyadaha kala duwan ee wadankaasi Itoobiya ku nool. anigu ma aqbalin dambiga laygu soo oogay ee ah inaan argagixiso ahay. laakiin dhinaca kale waxa la yaab leh waxa weeye sharciga argagixisada Itoobiya kaasi oo lagu qaado cid kasta wariyaal iyo dad caadi ah intaba. waxaan u mahad celinayaa dadka Soomaaliyeed ee kulankan ka soo qayb galay ee ka socda bulshada Soomaalida. waxaan u mahad celinayaa qowmiyadda Oromada dadka ka socda. waxaan kale oo aan u mahad celinayaa dhammaan dadka kale ee martida ah ee halkan yimid ee isugu yimid kulankan aan ku qabanay xarunta baarlamaanka Ingiriiska. waxaan mahad u celinayaa ballaaran hay'adda xuquuqul insaanka ee Amnesty International oo si wanaagsan noola shaqaysay. waxa kale oo aan ilaawi karin oo aan u mahad celinayaa xildhibaanada ka socda baarlamaanka wadanka Ingiriiska ee kulankan nagala soo qayb galay ee noo muujiyay inayna garab istaageen. dhammaantiin waad mahadsantihiin. waa tahay saaxiibayaal waxaan intaa ku soo gabagabeynayaa barnaamijka ha noolaato oo aan idinkaga soo tabinayay xarunta baarlamaanka Westminster ee wadanka Ingiriiska. halkan uu buug ku soo bandhigay saxafi u dhashay wadanka Sweden oo maalmihii cadaabta 438 cisho uu ku tilmaamay uu kaga sheekeynayay tacadiyada uu kala soo kulmay gudaha wadanka Itoobiya isagoo laga qabtay deegaanka Soomaalida. barnaamijkii inta ayaan ku soo gabagabeynayaa intaynu mar kale kulmi doono waa anigoo ayaan la Xuseen Cabdi waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dhammaan intii gacan igu siisay soo saaridda barnaamijkan. nabadgelyo ka qayb gal oo ra'yigaaga ku biiri ha noolaato si aad u hesho muuqaallo cusub fadlan subscriber noqo si aan u ogaano tusmooyinka aad ka heshay like saar ama share leh oo si fudud ula wadaag saaxiibadaada baraha xiriirka bulshada. wixii talo ama tusaale ah fadlan ha naga bakhaylin ee hoos noogu dhaaf. mahadsanid.